madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa safar shaqo ku tagay xarunta gobolka Hawd ee Balli-Gubadle halkaas oo kaga qayb galay ololaha doorashada ee xisbigeenu u leeyahay shacbiga reer Balli-Gubadle ayaa si diiran u qaabilay wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo taageeradooda cudoonna muujiyay waxaana soo bandhigeen sida ay xisbigan u taageersan yihiin maayirka degmada Balli-Gubadle madaxda dhaqanka siyaasiyiin aqoon-yahan xildhibaano hoggaanka xisbiga kulmiye xubno ka mid ah golaha wasiirada iska daba maray taariikhda ay wadaagaan shacabka reer Balli-Gubadle iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna murashaxa xisbiga kulmiye waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u cadeeyay inuu ka soo jeedo gobolka Hawd uu sheegtay waxa jirtay saddex xisbiga wadani saddex shulaha banaanbaxa ma inaan arag madaxweynihiisii xalaba waxaynu arkaynay inay yiri waa la soo wakiishay gobolkaagii Balli-Gubadle ku soo dhawow madaxweyne halkan adiga sheegtay waxaad ku sheegatay cududa muuqata iyo taageerada muuqata iyo awoodda maanta in hor taagan ee aad indhahaaga ku arkayso mudane madaxweyne gobolkaagii hooyo ee xaq u lahayd ee ka soo halgantay ee cidina ku sheegay ku soo dhawow mudane madaxweyne gobolkan wuxuu diyaar kuugu yahay haddii ilaahay nafta amaanada ay noo daayo maalinta 13 inaanu mar labaad ku saarno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu diyaar u nahay la soo dhawow madaxweyne waa goobtii aad ka soo halgantay cid halkan kaga warrami mayso cid kastoo kale waa ku qariib halkan uga haysa goboladaadii ma meesha aan salaxlayga laga xukumin ee gobolka Hawd laga xukumin baa cod loo soo doonanaya taasi waa maya baan u leenahay madaxweynuhu Hargeysana wuu ka cadeeyay halkanna wuu ka cadeynaya isaga iyo horseed inay wuxuu sheegay in kan lagu aaminayo dalka yahay waxaanu ku leenahay madaxweyne soo dhawow madaxweynuhu maanta waa halka fadhiya waa wada timaadeen aadna waa mahadsantiin idinkana waan idin mahadnaqayaa walaalayaal maanta waxaynu doonaynaa inaynu soo saarno madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi Soomaa waxaan u soo jeedinayaa musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa inay ugu codayaan musharaxnimada madaxweynaha iyo ku-xigeenka marka labaad taageerayaasha xisbiga kulmiye ururka horseed waxaan u soo jeedinayaa inay ururka horseedna u codayaan oo nu xisbinimo ku soo saarno 2017 waxa uu ku soo xidhay gobolka Hawd maantana waxa uu ku soo xidhayaa gobolka Hawd waa taariikh muujinaysa inaynu mar labaad guulaysanayno halkan cidi kaga ma guulaysan karto ugu mana dhawaan karto musharax madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidaa maaha doorashada madaxweynaha inuu madaxweynaha siino ka kalena inuu ururka horseed ballanteenu taas ay soo sidaa maaha waxaynu ognahay halka ay noo kala taageen kulmiye iyo wadani kulmiye intuu joogay waa intii ay horumarku Balli-Gubadle gaadhay saddexda haddii Balli-Gubadle laga adkaado taariikhda Balli-Gubadle halganka iyo gobonimadu way baabaday miyeedu ka maqasheen Cabdiraxmaan Cirre iyo dadka la mid ah xusbiga la yiraahdo horseed miyeedu ka maqasheen inama yaroo biirqaato meesha yaacaydu miyeedu ka maqasheen Soomaa madaxweynaha qaranku maanta waa kii kaga dhawaaqay in horseed iyo madaxweynuhu iyo ururka xisbiga kulmiye inay isku sidkayeen wax kala maaha taasi waxa weeyaan inta la isu jiro iyo waxa la isu yahay hor socod iyo dib socod ka bayna dooranaynaa kaya inagu hogaaminaya Muuse Biixi Cabdi baa inagu hogaaminaya maalin kaliya habsaamayaan leedka waay waxaynu u baahnay inaynu gabigeen inagoo gacmaha is haysana aynu gabigeen soo baxno aynu codayno madaxweynaha qaranka 5 sano oo dambe mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye ayaa u mahad celiyay shacabka ku dhaqan magaalada Balli-Gubadle ee gobolka Hawd ee dareenkooda taageero muujiyay dadka gobolka Hawd iyo degmo baan soo maray ee gumruug ka mid tahay iyo magaalooyinkii kale oo maanta wada taagnaa cadceedda oo na soo dhaweynayay oo ka muuqatay wadaninimo kalgacayl qalbi furan ugu soo dhaweeyay aad iyo aad waa mahadsantiin jazaakumullahu khayr
soo dhowaynta maanta waxa weeye mid qaranka lagu dhisaayo mid qarankan inta dan kale ee mustaqbalkiisa ilaalinaysa isla ogoshahay dadka aan ku kalsoonay mustaqbalka Soomaaliland wararka qabaa inaga mid ma aha dadka ka baqanaya xamar inana mid ma aha dadka shaki kaga jira Soomaaliland inay noqonayso qaran weyn oo adduunka oo dhan laga aqoonsanaya waa dhow inagu kuwa isku xisbi manihin maanta waxa ay sharaf ah inaan halkan ku soo gabagabayno hawd oo dhan inaan ku soo gabagabeeyo kaambeynkii ololaha madaxweynaha waxaan hawd u soo doortay waan maraya xadka inta ka gaari karo waxaan u soo doortay dadka marka dhibaatadu dhacdo lagu badbaado loo soo baxsado hawd bay noqotay barwaanka ugu beenayay maanta waxaa la kala dooranayaa Soomaaliland inay tahay qaran adduunyada ka mid ah oo ilaahay ictiraafay oo dadkiisu ictiraafay oo hirgeliyay wax aanay hirgelin kuwa jaarkeena ee la ictiraafsan yahay ee dhaqaalaha la siiyaa ee shirarka looga yeedhaa balgeeska aynu degannahay mandaqadan Afrika kuwaynu jaarkan oo dhan u eegadib madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa siyaasadda dalka ka hadlay ninka u sharaxan wadani oo haddii loo eego family-giisa iyo adeeradii dadkii halganka ugu karti badnaa ka mid ah oo shacabka wana soo garanaya halganka foolaadka ka ahaa intuu airportka alaysa ka soo degay 3 sano ka hor ayuu yiri isagoo cod doonaya anigu wariga xabad ma ridin xabadda ridi maayo hadda lixda adeero magacaabe ma waxaan weyn ku hadlaa wuxuu yiri anigu ma doonayo inay Soomaali culowdo imika halgarigiisu waxa weeye Soomaali oo wada saaxiiba oo dadka wada saaxiiba wuxuu ka soo dheegtay Xasan Sheekh Soomaali nabad kala nabad Soomaha murashaxa moodan wuxuu la saaxiibay Xasan Sheekh oo go'aan qaranimada Soomaaliland iyo habranaya mani kala adduunka 190 dawlad baa dawladda jira dawladda qura ee aan go'aan Soomaaliland inay madax banaanaato inay jirto inay tiraahdo qaran baanu nahay mataasoo la saaxiibaya murashaxa wadani oo cod lagu siinaya Soomaaliland dhammaan wali weydiinaya xisbiga doontaan ahaada xisbiga tartamaya waa inay mabda'oodu cad yahay wuxuu qabanayaan kimanayo ba waxaynu aaminaa ninka maanta leh ciidankii Soomaaliland dhibaatadii gaadhay ma ninka heesa u sameeyay ku diganayeen wax sunahay maanta ma ninkaas murashaxa waxay isu kala xigtaa Soomaaliland armay maqlaysaa reer go'do siday ugu kala daacadsan yihiin qarannimada Soomaaliland siday dagaalkii Soomaaliland u xoreeyay ugu kala badan yihiin halka dadkii odayaashii imanayay maalintii bilowda weerarada Samriya waxa hawlka qurash danka ka cararay Samriya halka uu socon karaa saak ina caga dabla aan maqasha raacaan halka wada joogo maqasha anigoo raaca oo soo duurka lahayd ku raaca intiina inta badan ma joogin oo ma dhaw